waxaan doonayaa inaan halkan kelmad u mariyo ganacsadaha maxamuud oo siciid oo runtii aan aad u jecelahay dalka wax badan u soo kordhiyay mashaariic badan oo faa'iido la keenay laakiin waxaad moodaa maxamed aw siciid geedi inay iskaga qaldayn kulmiye iyo tijaaradu waxa weeye ta wax saxda ta wax toosisa ta dadka baahan gargaarta ta abaaraha ka gargaarta ta faqiirka ka raadina ta dhulka dhista ta xisbiyada inta kolba mashruuc yar loo dhiibo lahaa xisbi udub soo baabi kulmiye baabi ucud baabi wadani maaha waxaan leenahay ganacsadaha maxamed oo siciid ha ka waajiro oo ha ka xishoodo waxyaabaha meeqaamkiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa hoos u dhigaya oo dadka reer Soomaaliland waa nin ganacsadaha maalkiisa iyo xoolihiisu meel walba way yeelaan laga bilaabo low yacday la ciilaayo yeelaan waxaan ku jecelahay inaa siciid walaal ganacsiga sharafta leh ee karaamada leh iskaga jir oo wixii milgahaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaada iyo qiimkaaga iyo mabaadiidaada ganacsi wixii wax yeelaya iska daabalnay qabyaalada waxba kuma qabanayso adduunyada imika afkaar baa la isku xukumaa lacag la isku xukumo qori caaradii la isku xukumo waxaan doonayaa ganacsigaagu inuu Soomaaliland iyo geeska Afrika ku fido sidaas ganacsatada nadiifta ee dahabshiil leh ee Tarasom leh waxaan doonayaa inaad ka waantoodo inaad ku milanto xisbi waayo waxaan aaminsanahay xisbi ka sareyso ummadda reer Soomaaliland oo dhan baad madax u tahay ganacsato u tahay intaas ayaan isaga ganacsadaha hawada u marnaya aad baan